macnaheedu waxa weeyaan de kolka hore dadku ilaahay diiday isna uu diiday ila ducada shardi baa u yaalayo aqbalkeeda shardi buu quraanku u dhigay shardigaasina waxa in ilaahay la aqbalaabuha wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i ba ilaahay idha da'an qofka ibariyay ducadiisa waan aqbalaya laakiin maxaa yaala shardiga falyastajibu li iyagu hortaay ajiibeen waliyu'minu bi hana irrumeeya la'allahum yarshudun si ay u hanuunaan u helaan waxay doonayaan marka ujibu da'wata ad-da'i ka ibariyay ducadiisa aan aqbalaya falyastajibu li ba daba taala marka thumma yad'uunahu fala yustajabu lahum ilaahi way bariyay ya allah ruuxa rabdoon subaxda iyo qunuutiyo iyo wadaad oo kale duceeyo alla bariyo sadaqo kullu dhalika rabb ma daayaba halka laga yaabo ummadii hore salafuna saalix Abbas ibn Abd al-Muttalib ayaa loo yeeray uu duceynay ilaahay roob ku shubaya asxaabtu salaf saasay iyo dadkii saalixiinta idan marka waqtiba waqtiga ka sii dambeeya waxaad moodaa inuu ka sii daray dadkeenu waqtiyadii hore xumaanta waxaad moodaysaa sida imika lagu yahay inay ka dhaameen dadku inay dhaameen waxoogaa qiiraahayo macnaha dadka raganimo ku sii baaqahay imika wala sii gaabanaya wala sii libdhaya wala sii tawafaya cudurkii iyo suntii umadaha shisheeye aynu u tagnay la isdhaxmaray ayaa gaaray dadka halkaas munkarkii iyo macaasidiis weydaaranaya oo aan la hadlayn